kulan waxaan wanaagsan saaxiibayaal ku soo dhawaada qodobbadan ka arrimaha siyaasadda Soomaaliya. Wasiirka Gaashaandhigga taliya ciidanka xoogga ciidamada dalka Al-Shabaab madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud Sidiye ee ugu yeeray Farxaan Qarool iyo Jeneraal Odowa iyo dagaal uu ciidaamiyay xogo muhiim ah ciidankaas ugu doona ammaanka magaalada Muqdisho qalqal ku yimid kadib markii la sheegay in Al-Shabaab leegayaan weerar ka dhana madaxweyne Xasan Maxamuud oo dhawaan qorsheynaya xilka qaadis. haddaba waa kuma shaqsiga xilka laga qaado xoga dheeraada idinka soo guddoona iyo gawaari wax xaqar lagu soo raray oo la sugayay Muqdisho iyo ciidamada amniga oo heegan buuxa la geliyay xoga dheeraada idinka soo guddoona gawaaridaas xaaladda guud ee magaalada Muqdisho iyo fashil ku yimid dowladda Xasan Maxamuud. intaas oo qodobada weyn warka hayaga minkana u dirgeeyay iyagoo dhameystiran fadlan kala faafinta warkan adigoo ku shaargana barabisha qaybada kala duwan haddii ku ta markii uu horeeyay nagu sabeer si aad u hesho xogaha ka daasan waad ku maasantahay qabta commentiin wala talata aynu ku balana si xaqanya la sabdan waxa magaalada Muqdisho soo gali gawaari qaaxa lagu soo raray isla markaana la doonay in lagu weeraro goob muhiim ah oo dowladda ku shaqeysa isla markaana barnaamijka gaarida noocyada kala duwan waxa sheegay la sardon gawaarida ana kala ku Sarif Helix AG eber 9 gaari Helix dabanan 48 midkiisa qalin ah gaari cadno AH 43 daban barnaamijka waxa lagu sheegay sidii la sardon hotel Africa iyo xarunta dibadda sidida madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya mudane Xasan Maxamuud ee wuxuu amray dhammaan lama abling inay howlgal buuxa sabirkana iyo heegan buuxa weerarada imiligan xaragada Shabaab markaana si loo dhanyahay habka qaado samarkana ay ku dhiirsadaan sidii ugu hortiirayeen dagaalameyaasha Shabaab oo doonay weerar ka dhan inay ka fududeen Muqdisho waxaana shacabka Soomaaliya sheegay in dhammaan qoraal qaataan isla markaana ay ka soo dhawaaystaan. markaan xafiiska imiday waxaan ballan qaaday in shabaab dagaal lagu cirib tiraayo lagu qaadi doono sababtoo ah khawaarij daawo aan ahayn in la tirtiro ma laha. dagaalkaas waa socdaa guulo la taaban karo ayaana laga gaaray gaar ahaan deegaanada Galmudug Koonfur Galbeed iyo Hirshabeelle. dadka Soomaaliyeed argagixisadu dagaal kula ma jirto dawlad danna kama laha waxaa mabda u ah cabsi gelinta bahdilka iyo gumaadka shacabka oo ay u dheer tahay boobka hantidooda iyo cunaqabataynta abriyada gargaarka u baahan. waxaa la yiri meyd maxaa u dambeeyay kaas la sii sido dadkii hoteelka Xayaat joogay maxay bi'iyeen ceelashii tuulooyinka Teedaan Bukure Inabaal ma murtadiin ayay ahaayeen. boqolaalkii birmageydada ahaa ee 14 Oktoobar Soobe lagu xasuuqay ma ciidan dawladeed ayay ahaayeen. dad muslimiin ah oo ay u badan tahay inay weyse u dhowreyd oo isugu jira bulshada qaybaheeda kala duwan sow ma ahayn. waana dhaqankooda in markasta oo guul darro la kulmaan si nafla caarinimo ah in ay ugu soo laabtaan shacabka oo ay xasuuqaan astaantaas waxaa la yiraahdaa